Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Khayr ku soo dhawaada mar kale iyo suuqa Arsenal iyo wararkii u dambeeyay. Sidaa shalay in idinla soo socodsiiyay Arsenal lacagtii ay u bandhigtay West Ham ay ku dooneysay ciyaaryahanka Declan Rice waa lagu soo celiyay isla markii ay sidaa u bandhigtayba. Hase ahaatee isla maanta haddana waxa ay la laabatay Arsenal lacag dhan 100 milyan. Lacag 100 milyan ah ayay la laabatay taasoo ay dooneyso in West Ham ay ku qanceyso in ciyaaryahanka ay kaga qaadan karto. Runtii Arsenal aad ay ciyaaryahankan u daneyneysaa. Arinta culus haddana arintu waaba adkaanaysaaba waayo Manchester City ayaa meesha soo gashay oo iyaduna ciyaaryahanka indhaha ku soo qabatay ma waxay ka rabaan ayadoo Darad Phillips qaatay oo Rodri u joogo ma aqaana waxay u ciyaarsiinayaan marka aragtana qaabkii ay midfield khad ka dhaxaysay u ciyaarayeen sanadkan. Stone ayaa laga dhigay khad dhexe inkastoo ciyaaryahanka aad uu uga soo baxay aan la yaabay qaabka uu ciyaarayay khadka dhexe. Pep Guardiola waxa la yaabana ma ahana Pep Guardiola macalinkiisa sidoo doono ka yeeli ninkaasi ayaa waxaan u maleynayaa inaysan ku qancin ciyaaryahanka Phillips ciyaartiisa. Runtii Pep ma aaminsano ma aqaano ma mustaqbal buu u dhiganayaa ma garanayo. Manchester City ayaa meesha soo gashay oo iyadana ciyaaryahanka isha ku qabanaysa ayaa la leeyahay oo ka faa'iideysan rabta Arsenal haddii ay daado in ciyaaryahankan uusan dhulka dhicin oo ay qaado. Runtii Arsenal waxay u baahan tahay inay tilaabo degdeg ay qaato ciyaaryahankaasna ay soo qabato sida ugu dhaqsiyaha badan si ay firaaqo ugu hesho ciyaaryahano kale oo suuqa ku jiro. Ciyaaryahanka waa halkaas oo Arsenal number 1 priority-geeda weeyaan. Sidoo kale waxaa la sheegay isna in Kai Havertz uu Arsenal uu u dhigay pass khatar ah, pass ay qaadan karaan oo dhamaystira kaliya ayuu u dhigay ciyaaryahanka Arsenal green light ayuu u shiday asagoo tusay in uu aad ugu baahan yahay in Chelsea intuu kasoo wareego. Hase ahaatee waxaa leeyahay ciyaaryahankan aad buu ugu dhow yahay in Arsenal uu kusoo biiro waa aad buu ugu dhow yahay la yiri laftirkiisa in Declan Rice ba ninka ku xigi doona inuu yahay ayaa la sheegaya ama uu kasoo hormari doonaba heshiiskiisa. Arsenal waxaa la yiri markii hore waxa ay rabtay Mason Mount ay indhaha ku haysay laakiin markii loo sheegay in ama ay ogaatay ciyaaryahankaas in uu door bidayo Manchester United isla markii way boodeen Arsenal. Waxay dhaheen marba hadduu interest uusan nooyinin waan ka baxnay Kai Havertz ayna imika diirada ay saarayaan. Runtii waxaan leeyahay aad ayuu ugu dhow yahay ciyaaryahankan in uu kusoo biiro Arsenal. Sidoo kale Arsenal ayaa maanta fasaxday caasigii weynaa ee loonka ugu maqnaa waa ciyaaryahankii ahaa Ainsley Maitland-Niles. Ciyaaryahankan ayay maanta ay fasaxeen wuxuu dhamaanayaa heshiiskiisa bishanaynu hadda ku jirna marka ay sidaa u dhamaato ay ciyaaryahanada marka ay sidaa ugu soo noqdaan London Colony ee isku diyaaran doonaan USA. markuu sidaa u imaadaba asaga waxaa la yiri waa uu tagayaa waa la fasaxay marka caasigii weynaa waa tagay. Sidoo kale isna waxaa la rajeynayaa inuu baxo sidaan hore idinku sheegayba Pepe. Sidoo kale wararka waxay xaqiijinayaan in Arsenal haatan la taagan yahay ay iskaga baxday raadintii ay raadinaysay ciyaaryahanka Moises Caicedo. waxaana la sheegayaa in ay hogaaminayso haatan la taagan yahay Chelsea helida ciyaaryahanka sidii lagu heli lahaa. Kalabyo badan ayaa daba taaganaa Manchester waxaa ku jirta Manchester United Chelsea Real Madrid xitaa waa ku jirtaa. ciyaaryahanka meel badan ayaa laga raadinaya ilaa Bayern haddana ayada hogaaminaysa la yiri maadaama Arsenal ay booday waayo 100 milyan Declan Rice kusoo gad ninkana hadda waxay tagtay lacagtiisa 90 milyan ay sheeganayaan 100 milyan bay sheeganayaan hadda Brighton. sidoo kale ciyaaryahankaas marka waxay sir 100 milyan suuq kuma gali kartid haday 100 ka baxaysa Declan Rice ha kaaga baxday is leedahay. sidoo kale Arsenal waxa iyadana ay raadinaysaa sida ogtiinba ciyaaryahan striker ah inkasta oo la leeyahay haddii ay ku guuleysato Arsenal in heshiiska Kai Havertz ay dhamaystirto inay ka maarmi doonto ciyaaryahan striker ah ilaa xilli dambe maadaama Kai Havertz uu noqon karo ciyaaryahan number 9 asaga iyo Gabriel Jesus iyo Edin Ketia ay boosaska isku bedbedelan karaan.
sidoo kale ciyaaryahanka Ilkay Gundogan ayaa isna waxaa la yiri waxaa heshiis u soo bandhigatay oo waliba heshiis aad u dheer Borussia Dortmund wuuna diiday waxaana la sheegayaa in ciyaaryahanka uu maaragtay uu indhaha ku hayo laba kala midkood Barcelona ama Arsenal midkii toos u soo codsada inuu ciyaaryahanka uu aadi doono ayaa la sheegayaa sidoo kale Saudi Arabia ayaa isna ciyaaryahanka maaragtay raadinayso oo isla ciyaaryahanka aad soo qabataan hase ahaatee ciyaaryahanka ilaa hadda Arsenal waxa indication ah ama waxyaaba maaragtay cadeynaya male in Arsenal hadda ay heshiis maaragtay ama lacag ay u diyaarinayso ciyaaryahanka ay maaragtay ay ku raadinayso hase ahaatee wuxuu ku jiraa listiga ciyaaryahanada Arsenal ay suuqa ka fiirsanayso haddaba khiyaaray wixii warar u hoos oo kordha waa idin la soo socodsiinaya haddana wararkeena waa inaga intaa waxaan idinkaga tegayaa sidee nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh